kahor muddo ku dhawaad 10 sano ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waxa caanka xirfada loo yaqaan artiska masawir gacmeedka oo goobaha ganacsiga sidoo kale hawiyada magaalada lagu soo bandhigi jiray hadaba waxa telefishinkan istomniis warbixin idinka diyaariyay habka casriga ee hadda bulshada u isticmaasho daabacada casriga ee laga gudbay habkii hore ee farshaxanimada waxa jira dad xirfadooda shaqo ay ahayd artista masawir gacmeedka oo ay hadda bulshadu aad u isticmaasho daabacada casriga sidoo kale xaaladda nololeed ee la soo diristay bulshada ganacsan jirtay xirfadooda aqooneed maxamed cabdiraxmaan cismaan oo ku magac dheer iyo artista mulkiilaha shirkadda daabacada iyo galjeed waxa uu dadka caanka ku ah farshaxanimada isagoo hore u soo bandhigay farshaxanimo cusub bulshadu aad ula dhaceen waxa uu telefishinkan uga warbixinayaa faraqa u dhaxeeya daabacadii hore farshaxanimada iyo sidoo kale habkan cusub daabacada sidoo kale waxa uu sheegay labadan habka raandisan ahaan dambeynaya waana kan isagoo ka warbixinaya amurahaasi walaal hadii aan ka jawaabo su'aashaadii weydiisay ee ah caqabadaha ay keentay adeegan digital printing ama madbacadahan casriga ah ee hadda wadanka ku soo kordhay runtii waxaan oran karnaa 50% waxay challenge ku noqdeen adeegyadii ama xirfadii gacanta ee aan bulshada u qaban jirnay meheradii ama goob kasta oo aan u sameyn jirnay xirfada gacanta iyadoo loo adeegsanayo ama dhinacii baahida inta laga maray ayaa loo sameeyaa board baca quality-giisu yar yahay cimrigiisuna gaaban yahay laakiin isla daqiiqada cost jaban run ahaantii ma oran karayno oo qura adeega daabacada iyo ama digital printing wuxuu keenay hoos u dhac dhaqaale ama dad bu shaqadoodii gaabiyay ma oran karnee kaliya waxaan oran karnaayo kale wuxuu kor u qaaday ama uu kamid yahay talaabooyinka horumarka ah ee wadanku hore u qaaday adeega xirfada 3D-ga before anigu intaana gacanta ku sameyn horto kaabaan arkay automatic ah ee computerka lagu soo sameeyay kadib markaan ka arkay baan anaguna igu dhalatay ama nidaamka loo sameeyay aan ka fikiray alxamdulillah dhowr jeer baan practical ku sameeyay isagoo kartoona markii dambana isagoo plywood ah baan sameeyay alxamdulillah way suura gashay laakiin waxay ku kala duwan yihiin cimriga halkii kan plastic ah ama bacdi cadaanaysay ama abwash isku haysay kala daadanaysay kan plywood ka ahi uu ka cimri dheer iyo uu ka adag yahay sidaas ay ku kala duwan yihiin walaal ay dhinaca iftiinkana ku kala duwan yihiin oo kan day kaliya yahay kan kale day net bay yahay walaal hortooyin bulshadu markeeda horeba xirfada farshaxanku waxa weeyaan waa talent waa hibo weeyaan dadkuna 100% hadda iyo hore labadaba way xiisan jireen haddana way xiiseeyaan laakiin kaliya waxa hoos u dhacday adeegii la qaban jiray ee bulshada ayuunba hoos yara gaabtay laakiin dadka iyo xiisahoodu ku jira farshaxanka wax markii hore la xiisan jiray buha imikana wax la xiiseeyo anigu shakhsi ahaan maxamed ahaan aragtideeda waxaan aaminsanahay inuu farshaxanku ka qaalisan yahay ka qiimo badan yahay kana sareeyo markasta digital printing-ka waayo isagu waa wax talent oo maskaxda aad maalayso kana waa adeega lagu soo diyaariyay photoshop-ka lagu soo diyaariyay ee inta alaabta soo qaado halka dhigayso marka mar leeyba la ma barbar dhigi karo digital printing-ka iyo farshaxan gacmeedka waxa sareeya oo qaalisan oo quality fiican markasta farshaxan gacmeedka laakiin adeega printing-ku wuxuu ka qayb qaatay horumarkii wadanka waxyaabo badan oo challenge ku ahayd dalka iyo dadkabana uu fududeeyay sida daabacada buugaagta iyo adeegyo badan oo daabacada la xiriirana uu hawl yareeyay Ahmed Shamaad Ahmed Digro telefishinka caalamiga Somali TV Doorka